halkani waa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waana caasimadda labaad ee Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland haddaba magaalada Burco ayaa ah magaalo ka aradan gabi ahaanba horumarka dhinacyadiisa kala duwan gobolkan Togdheer magaalada madaxdiisa Burco ayaa kamid ah magaalooyinka ay ka dayeen roobka guga haddaba waxay muuqataa mid aan laga hirgelin mashaariic horumarineed dhinaca wadooyinka ayaa gaadiidleyda kala duwan sida fiinta waqooyiga wado xumooyinka ka jira gobolka dhinaca kale shacabka ku ganacsada dhinacyada wadooyinka ayaa cabasho xooggan ka muujiyay wadooyinka oo noqday xurfado iyo sidoo kale biyo fadhiisina ay galeen roobka ka dayay magaalada Burco halkaas oo ay ka dhalan karaan cudurro halis ah waxayna sidoo kale hoos u dhigeen bilicda magaalada Burco oo u ekaatay quburo haddaba bulshada gobolka Togdheer ayaa ku tilmaamay mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco qaar ka gaabiyo shaqooyinka ay bulshada dooratay u hayeen waxaana u dhignaa hadalkoodii sida tan warnimayo oo tadar raxmadii Ilaahay baa inoo shubay abaarta waa naga soo jabtay hase ahaatee magaalada Burco wadooyinkeedii way xidhan yihiin wado xumo ka jiraan anoo la hadlay dawladda u xil saaran ee ka tirsan gobolka waxaan leeyahay istaamadii iyo wadooyinkii iyo dhulkii gaadiidku marayay wajidkooda dib ma hagaajina in laga hagaajiyo doonina oo dhiiqada magarasa laga hagaajiyo waxaana weeyaan dhiiqada maxaa ka dhalan karaa dhiiqada waxa ka dhalan kara xanuuna ka dhalan kara waxa caafimaadka ma yara caafimaad darra ka dhalan kartaa imaka kalooro kale oo ka dhacay wada aragtaa meesha ka shaqeynaa sidaas oo ka nooca meel dadka laga fuulaan iyo meel loo soo maraa toona male markaana waa lagu sheegay magaalada dhan waxaan kala simanaa ma wax noo gaar ah hadaan waa bahatay doodas cashuur wanaga qaadaa hase aata wax allaale wax naloo qabtaa anoo garama cashuuraad wax ma lagu qaaday in wadooyinka laga hagaajiyo gaadiidka dib marka laga qaadayo laakiin gaadiidka wado loo qabtaa anoo wax lagu qabta garamaano magacayga waa Maxamed Salmaan waxaan dadkii Burco deganay beerta ku yeeshay daada ku yeeshay haddii aan ka hadlo xaalada tigahan iyo istaamadan basaska iyo dhinac kasta ay yihiin gaadiidka Burco iyo waxqabadka dawladda hoose xilwaanada dala doortay aad buu liita daqiiqada wartan ku gobolada bak markaasta bak unaga gubay doqaasana gubtay waxyeeladii wadran xuna waa la keen waxyeelada daqiiqada soo geystay gaadiidka noocan iyo nooc kasta weyn magaalada Marabo ayaguna wasaqba fadhida waxaasoo dhan waxa loo baahay dawladda hoose wax ka qaban dawladda hoose imka fadhigeeda lacag ku qaadanaysa nin wax qabanayana ma jiro waxa weeye balkaas fadhiya waliba saddex cashuurad laba cashuurad oo malay dadka laga qaaday macaash xitaa iyo waliba cashuur sanadkiiba laga qaaday dawladda hoose waxa la yahay dadka shacab weeyo dadku waxay doonayaan wax qabad u baahay uma baahna qof iska fadhiyo oo dhaqaale iska cunay dadkuna ay suuqa dhibaatooyin fara badan gobolka Togdheer Axmed baa daaday Axmed wixii daay daad buu keentay daadka waxa laale wixii kala degan iyo maanyarka waxa laale shaqadoodii way gabeen dadka anigu xalay October baan u hoyday guriyahayga ila mid way dumeen marka waxaan ku cambaaraynaa golaha deegaanka oo cambaaraynaa gobolka Togdheer oo waxaan cambaaraynaa Maxamed Buraad oo gobolka waxba u qaban waayay inta ka bacdi waxaan si cambaarayna wadooyinkii xaafadda taimka aan taaganahay ilaa iyo October waxa laale wax loo qabtay gobolka ma jirtaba marka waxba yaanu meesha fadhiyeen ama gobolka waxa loo qabto ama hal iskaga kala sareero dhibaatooyinka roobku ku keenay suuqa baabuurta dadweynaha dawladda hoose aanay waxba u qaban hareerahayga haddaad sidaa ogta biyaha qarmuunka waxa meesha yaalla waad arkaysaa xanuuno qarmuunka xanuunoodii haddii laba dhaqaatiirtu way sheegtay iminka magacyadooda anag waxaanu u baahannahay in gobolka hoos loo eego dadka abaarooba hadday tahay daadadku waxa ay ku soo rogeen ka uraya dawladda hoose inay lacagta ka gurato dabatana guryo albeerkooyina dhisato looma baahna isku soo wada xooriyo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa magaalo ka hadhay gabi ahaanba inkaasageeda taasoo ay sababtay wax qabad la'aanta mulka degmada Burco Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco